عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحين كل احترني فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. وحكاهد لي حقيقة علمك إيو فقهك إيو شرفت ولي هي علمك إيو فقهك. حق عنوانك waxaanu niri wuxuu hormariyay qeexitaanka laakiin markuu u gondadegay arintii uu bilaabay wuxuu ku bilaabay fadlul ilmi wal fiqh kadib uu qeexitaankana uu u tagi doona waxa inoo dambeysay isagoo cilmigii qaybiyay mid fardu ayna mid fardu kifaaya ah iyo waxyaalaha qaar oo ay xaraam tahayba in la barto wuxuu yiri cilmiga xidiguhu waa sida xanuunka oo kale in la bartaa waa xaraam waa inaanu kala qaadno oo ku ujeeda waxa weeyaan cilmu taasiirki waa in xidigaha loo barto iyadoo la aaminsan yahay xidigaha cirka ku tolan ee ku shareerani inay saameyn ku leeyihiin dhacdooyinka dhulka ka dhacaya ee caafimaad leh ee cudur leh ee cid dhalanaysa leh ee cid dhimanaysa leh ee nabadgeliye leh ee colaad leh ee barwaaqo leh ee balaayo iyo abaar leh taasi waxa weeyaan waa gaalnimo in la aaminaano waa gaalnimo dadka waxa ka shaqeeya in la daba fadhiistaana iyaduna waa gaalnimo waayo dib mooyaane dheefba ma laha wiil wal harabu wal xaal buuri al harabu in laga cararo min qadaa illaahi tacaala ilaahay wixii uu xukumay iyo wa qadarihi wixii uu qorsheeyey ee hore uu u qoray ee uu jaangooyey ee hore uu u guddoomiyey in laga carara غير ممكن marnaba suuragal aanay ahayn wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka hore ugu qoray ee looxul mahfuudka ugu yaalay in qofkaasi waxaasi uu ku dhaco marnaba qofka ma gara marayo oo ma weydaaranayo uu ku dhacaya wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka aan uu qorin inuu haleelo oo uu ku habsadaana si kasto la sameeyo waxaasi qofka kuma dhacayo haddii aad istiraaggeeri ka cararna wax kastood samayso kama carari kartid mawdku waxa weeyaan lama huraan haddii marre lagu akhriyo iyo haddii makaraan iyo qardhaas lagu dhigo iyo haddii macsar iyo malab aad ka dharagto iyo haddaad kolba meel madaxa ku dhufato geeridu tii kugu habsanaysan wey marnaba mawdka isma seegaysa waxa laga yaabaa adigoo geeri ka carara inay geeridu kugu dhacdaba yushiku man farra min maniyati fi ba'di ghiratihi yuwafiquha waxa dhici karta qofku soo geeri ka cararaya si kadisay inay geeridu ula kulantaba fayanbaqi marka waxa uu haboon buu sheekhu likulli muslimin qof kasto muslim aan yashtaqila inuu ku mashquulo fi jamii'i awqaati waqtiyadii soo dhan بذكر الله تعالى إلهي حسكي سينو كما شقوله وانو إيو وعدي تيو قدام بيسيبو شيخو ينو ساري يعني قف إنو هقاتيو قلب جيس إنو هقاتيو قلفوف إيسا إن نفتيسا وهفو وهادي سيدي نفت اللوهو في اللوه هادين يوحلو فينبغي وحابون لكل مسلم قف كالصو مسلمنا أن يشتغل إنو كما شقوله في جميع أوقاتي واختيادي صورا بذكر الله تعالى إلهي حسكي سسريه والدعاء إنه كمشقوله إلهي بريديسا والتضرع إنه كمشقوله إلهي إنه يسبهم بهيو أو يصدر له وقراءة القرآن إنه كمشقوله قرآن كأغرس كيس والصدقات إنه كمشقوله صدقة بحنتيدا صدقتي الدافعة علينيسي الريحيسي للبلاء بلايا أوردر
كل وحني وده أدلة لي مد هذه الضونا اللي يسدل تاجنا ده وقت قاعد عيا أو ديرانية صدقة أو كله عبادات كقوة وقيمة هبضا أو صامين هبضا أي كتيرته الرسول كأنه صلى الله عليه وسلم وحي نورشة صدقة إنه تهيد دمدمس عرض إلهي سبحانه وتعالى إنه بختينس والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صدقة وحي بس يساوي الرسول عليه الصلاة والسلام عرض إلهي سيدا بيوه بقى يدبكه بسيه مركل الرسول قحري صلى الله عليه وسلم صدقة وحي باختصاص عرض إلهي وتقي من مسارع السوء قفكنا وحي كإلاليسا إنه صحن ودنتو مeel xun inaad ku baxdo oo si xun aad u socoto sadaqadu way ka ilaalinaysaa khaatumadaada ayay wanaajinaysaa ducaduna iyaduna shanigeedu aad buu weyn rasuulku waxa uu gaarsiiyay hadii qadarka wax uu ka dheerayn lahaa waxa ka dheerayn lahayd ducada ويسأل الله ألا وإنه ويدست تعالى سرية العفو إنه دنبغي صدافه والعافية إنه بدباديو في الدنيا والآخرة آخرة ويسأل الله تعالى وحي كعد فنتي أن يشتغل إنه كمشغورة دي بكعد فنتي وإنه مركا ويديستو وحاوها بهم بكاري أنتي إنه إلهي ويديستو العفو إنه حمانيه صدافه والعافية إنه بلايدي كبنبانيه وإلهي سبحانه وتعالى وكبدبادي في الدنيا والآخرة الدنيا يا آخرة تنضي دعوين كالرسول كوين بربي كترتايو من أذكار الصباح والمساء دعوين كالآخرية يو قلن كوري قلن كالضبوة ويكترتا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي وكمل ليصونه الله تعالى سوى إلهي وإلى عن البلاء بلايده والآفات يلي باتويك دعاء إلهي أكبر إيسا مرنا وعد لما دعيش وصدح ندب الرسول صلى الله عليه وسلم وحي أدونيسي إن ميسك الله صعربا ووحي أدونيسي إلهي بردي لغسيو إيوه إن وحي أدونيسي آخر لوودي بدو وانا تا وفي عن إنه دق بينو تعالى لكن إن أكون كآخر لغوشو أي مهمسة mid saddexaad rasuulku wuxuu yiri wixii aad doonaysay lagu ma siinaye laakiin balaayo kugu habsalay ayaa lagaaga bambaaninay oo lagaaga badbaadinay waa iyada lafteedu arrin muhiim fa inna man ruziqa bil shaykh qofka lagu arsaaqo ad-du'a baryada lam yuhram lagama qadiyo al-ijabata aqbalka lagama qadiyo qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafajiyo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala bariyo oo gacmaha uu kor u taago marnaba lama qadinay sinaba laguma qadinay marka qofku waxa laga doonayaa isagu inuu xambaaro hamma du'a Umar ibn Khattab oo kale waa laga soo guuriyay inuu yiri inni la ahmilu hamma du'aa'i wala ahmilu hamma al-ijaba aniga la yimadirin aqbalka ay aqbalku ilaahay uu yaala laakiin aniga waxa la idiray buu inaan ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmaha kor ugu taago oo aan bariyo hadaad ilaahay barido oo aad bariyadiisa iska laasimto marlay ilaahay waa kiya ka aqbalay walaazim baabahu qar'an asaahu sayaftahu baabahu laka in qara'ta ilaahay albaabkiisa garaacu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay hadaad garaacdo inuu ka furi doono aakhir hatta qofku haddii gaal uu yahay oo xaaladdu ay ku adag tahay oo ilaahay uu baryo ilaahay wax uu siinay haddii dambiile kasta uu yahay oo xaaraan xitaa uu quuto oo uu cuno oo wuxuu xidhan yahay iyo wuxuu cunayo ay xaaraan yihiin oo dhibaatadu ay ku adag tahay ilaahay inuu ka aqbala dhici karto maxaa lagaga aqbalayaa
dhibaatadaas uu ilaahay ugu naxariisanaya waxa u daliil amma yujibu almudarra idha da'aahu wa yakshifu as-suu lama kala qaad fa in kaana al-balaa'u balaayadu hadday tahay muqaddaran mid qofka loo jaangooyay yusiibuhu balaayadaas way haleelaysaa way ku habsanaysaa laa maxaalata shakila laa maxaalata waxay ka dhigantay meel looga wareegaa laa taxawula mawjuudun mid jira maaha meel looga wareegaa ma jirto walaakin yuyassiruhu allahu tacaala calayh laakiin ilaahay ayaa u fudaydinaya haddii dhibaatadan ilaahay kuu qadaray inay kugu dhacdo kolley waa tii kugu dhacaysa laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala kuu fudaydinaya baryada sababteeda ayuu kuugu fudaydinaya wayarzuquhu wuxuu ilaahay ku arsaaqayaa as-sabra inuu ku dhabar adaygo bibarakati ducaa'i wuxuu ilaahay uu ku arsaaqayaa inuu ku sabro bibarakati ducaa'i bisababi barakati ducaa ducada barakadeeda sababteeda inuu qofkaas ku sabro ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku arsaaqayaa allaahumma ilaa allaahumadaasi waa istisna amba waa istidraak bimacnaa laakiin wuxuu ka daba tegayaa muu soo odhan cilmu nujuum isagu waa bimansilati almarad fatacallumuhu xaraam soo odhan waxbuu ka soo reebaya ilaa waa inagii inagu xalay lagu kala qaadnay cilmu nujuumka kan lagu garanayo wakhtiga ee cilmu tasiirka la yidhaahdo ee lagu kala saarayo gugii iyo jiilaalkii iyo wakhtigii salaada lagu garanayo iyo wakhtigii cibaadada iyo jihooyinkii marka qofku uu dawaqo waxa weeyaan uu dhamco dee kaasi uu banaayay waa loo baahan yahay kiibuu markaa ka soo reebay wada xaaraan ma allaahumma ilaa laakiine idaa tacallama markuu baranayo min annujuumi xidigaha uu ka baranayo qadra maa kii qadarkiisa yacrifu bihi uu ku garanayo alqiblata qiblada iyo wa awqaata salaati salaada waqtiyadeeda fayajuusu waa bannaan yahay daalika tacallumkaasi wuu bannaan yahay in cilmigii xidigaha laga barto wixii qofku uu ku garanayay qibladii waqtiyadii salaadii faralka ahayd waa mid bannaan likownihi wasiilatan ilaa macrifati alaxwaal addiiniya dee diintii baaba lagu garanaya marka sida diinta in la bartaaba ay maqbuul u tahay wixii diinta barashadeeda ee noo sahlaya ee noo sakhiraya in la bartaan waa maqbuul marka intaasunbu xidigaha ilaahay u abuuray ziinatan lisamaa waa rujuuman lishayaadiin wa calaamaatin yuhtadaa biha saddexdaa arrimood buu ilaahay xidigaha u abuuray cirka way qurxiyaan oo cirka haddii xidigaha laga hingafo oo xidigaha laga qaado dee wuxuu noqonayaa mid la qaawiyey uu fool xumaanaya laakiin xidigahaasaa qurxinaya xidigu waxaa kaloo ay yihiin waa gantaalihii lala dhacayay shayaadiinta oo adiga arkaya kolba marka shayaadiintu ay fuulfuulaan ee ay doonaan xagga sare inay soo dhegadhegeeyaan kolba lowr dambaaburaa ayaa dam lagaga siinaya dambaaburadu waxa weeye warankaa cirka shihaabkaa ku dhacaya وعلامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون سو إلهي مور إيادي أستامها لغو هنوني يجوهينكي لغو كلا قرني intaa wax dheeraad ka xiddiguhu ma faa'iideeyaan oo ma aragtay waxba saameyn kuma laha dhacdooyinka dhulka ka dhacay fayajuuzu dalika marka kaasi waa banay allahumma illa laakine ida ta'allama inuu baranayo ida ta'allama markuu baranayo min an-nujum xidigaha qadra ma ki qadarkiisa yaarifu bihi uu ku garanayo al-qiblata qiblada iyo awqaata salaada waqtiyadeeda fayajuuzu waa banaayahay dalika kaasi أي التعلم برشدة وبنين وأما تعلم علم الطب إلا برتع علمك نختارني ماذا فيجوز بنين لأنه محايا ليس سبب والسبب من الأسباب أسباب تكملة فيجوز وحبنان تعلمه برشديسة كسائر الأسباب سيدا السببها كالوردة فقد تداوى وحيث دوي النبي صلى الله عليه وسلم نبيه وقد حكي وحلق الشيء عن الشافعي رحمه الله تعالى الشافعي أنه قال إنه العلم علمي
علمان والله علم علم الفقه علمي فقه فهم كدين علمي قاصو للأديان دينه وسقناد دينتي وسقناد وعلم الطب يعلمي دخترني ماذا كاصو للأبدان شركي وسقناد وما وراء ذلك كاوحا كسو هرينا بلغة مجلس قول وحلو كافتومو ويابو علمي دبي إلا برتو ويبنانتي بو يعني هو مباح حكم كيس نختارني ماذا إلا برضه بل إسكدافه إنه فرض كفاية نقطة لقيا بل إسكداي إنه فرض عين بنقطة لقيا مركع عباده نقول كرايستي لفتس على أقل أحواله هو محي ومباح ومد بنامبولي وهي السبب كم ده أسباب سيدا أسباب تكلبا أيو بنان تهاي أيو يسوقنا وبناناني كدبنا وحو شاقي نبي صلى الله عليه وسلم إنه يسدوي داد كلفته دانا وفري إنه يسدوي رسولك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بوحا نسجر دابا تانا كلبه وفود عربيده وإيمانيسا أيا وايا أرقنمو waxay leeyihiin ee xagga dhakhtarnimada rasuulku u sheegi jiray walahi maxamed oo kana samee bal kana isku day waata Aisha oranaysa dhakhtarnimada waxaan ka bartay wufuudii rasuulku u imanaysa ee waaya aragnimadooda la wadaagaysa ila Aisha markii dab waxay noqotay dhakhtarad loo daba fariistay cilmiga dhakhtarnimada oo kolba qofkii xanuunsado lagu soo qayliyo oo looga qaado wixii tala حديثنا الرسول يقول يا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام الضوامض إلهي تداووا اسدوية ولا تتداووا بحرام هاي اسكو دويننا وحارانا لكن وحلالة اسكو دوين هذا المو مركي دمانا الشافعي كسر الشيخ مركي دمانا وحولي فقد تداوى وحي استوي النبي صلى الله عليه وسلم نبي يبا يستوي وأما تعلم علم الطب علم قد اخترني ماذا برشديسه فيجوز هو بنايه لأنه محايا له السبب هو السبب ومن الأسباب السببها كمل فيجوز هو بنان تعلمه برشديسه كصائر الأسباب كما يجوز تعلم صائر الأسباب سيده بنايه سببها كلام إن لبرته فقد تداوى وحي استوي النبي صلى الله عليه وسلم نبي جاء استوي إلا يستوينا وفرق تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام وقد حكي وحل الشيء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إنه شافعي وإمامك معروف أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلب آل البيت كم من النبي أيام معركتين ده وقلا أبترسينتي سيا أبترسينت النبي سكمل بي قليا بنو المطلب يبنو هاش أي كلا قليا لابد أضيع ولا لها مركواني إمام كوينا بقوليه كنت جي تريد يسوي الله تاريخي وما بحن غني عن التعريف إلا قيحه وككف تعيد والباقرنس عروري عرور الله بيلدي والله وده قرني ده يريد قيت بقوليه كنت جي تريد أيو كل شيء ماله إلى هذا غزة دولكا فلسطين أي مكان يهود أي هيسطو بقوليه كنت جي تريد لا بقوليه أفرتي تريد روح كو إيشا مصر هل كاسانو كو آسي وأنا إمام كوين وأنا ككلية أفرت إمام الدين تلاه ده فريسو آل البيت كا والإمام الشافعي وكا نبرك يسبوها وحويلي العلم علم وعلمان والله علم علم الفقه علمي فقه أحدهما خبر لمبتدئ محذوف وخبر مبتدئ بين أحد فني كل قوين وهمودين للأديان إذا سنة خبرتين شارين تركوا حلقة نعتين علم الفقه ولا نعتين لكن مبتدئ بحد فني أحدهما متكود علم الفقه وعلم الفقه علمي الكائن أصل ناضي للأديان الدين توصلنا وعلم الطب وثانيهما كود الله بعضنا
halka lafteeda waxa xadfan mubtadi aba wal aakharu ka kalana cilmu dibbi wa cilmi dibbiga alkaa'inu usugna lil abdaani jir wama waraa dalika inta waxa ka soo haray labada cilmiye la soo sheegay wixii ka soo haray bulghatu majlisin goole wax lagu kaaftoomo weey kifaayatu majlisin goole wax lagu kaaftoomo weey bulqa waxa la oran jiray markii hore ma yutaballaqu bihi min al-aish wixii lagu kaaftoomo ee luqmada amba nolola ayaa la oran jiray laakiin imaka wax lagu kaaftoomo baa loo jeedaa nolol ma aha yaani wax lagu kaaftoomo waxaanu ka wada labada cilmi wixii ka soo haray kifaayatu majlisin goole wax lagu kaaftoomo weey nafci kala ma leh in lagu sheekaysto oo lagu haasaawo mooyaane faa'iido kala ma leh labada cilmi ba faa'iido cilmiga fiqiga ee diinta fahankeedii iyo cilmiga dhakhtarnimada qofka iska baran karaya labada way isku dari karaya waa heer sare ee kana ma aragtay ee ku shaqaysanaya diintii ilaahayna alla dartii u fidinay way fiicanta in diinta wax laga qaado oo diinta laga shaqaysto iyadoo waa laga habooyi qofkii ka maarmi karaya marka xirfad kale intuu iska samaysto ayuu diinta ilaahayna bilaash ku faafinay haday quraanta iyo hadii ay tahay cilmi la dhigayo wa ama tafsiirul ilmi muxuu dib ugu noqday faslun fi maahiyati al-ilmi wal fiqh wa fadlihi ku hormaray soma cilmiga qeexidiisa dib ugu noqday wuxuu wa ama tafsiirul ilmi ilmiga cadayntiisu fa huwa sifatu sifawiyan sifadaas oo yatajalla wa cadaanayo biha sifada waxa ku cadaanaya liman qof ayaanay ugu cadaanaysa qaamad ay ku qumtay hiya sifadu bihi qofka ay ku qumtay al madkuuru waxa ku cadaanaya wixii la sheegay kama huwa sidoo aha ayaan ugu cadaanaya baahiyatul ilmi ayu inoo qeexay sheekh cilmigu waxa yiraahdeen in la qeexo uma baahnaba culimadu markii ay qeexitaano kala duwan ay qeexeen mid walba la bushiyay waxay yiraahdeen cilmigu in la qeexa ma baahba waa la iska daayay marka sheekheenu isagu qeexay qeexitaanadii cilmiga mid kamid ah waa ma tafsiirul ilmiga cadayntiisu fa huwa sifatun sifawiyya sifadaasoo yatajalla wa cadaanayo yattadhihu wa yankashifu biha bitilka sifati sifada sababteeda waxa ku cadaanaya liman ruuxna waxa uu cadaanaya liman waxa lagu tacalluqinaya jaari turka yatajalla liman ruuxna waxa uu cadaanaya sifada ruuxaasoo qaamad ay qumtay hiya sifadana qumtay bihi manka ayay ku qumtay almadkuur wa faa'ilki yatajalla waxa uu cadaanaya almadkuuru ما يصح أن يذكره ويمكن أن يعبر عنه وحي أي أصحيسي إن لا شيغو لا عبره كما هو سدوها أيانا وعداني وحي لي علم وحا لا يراهدا واصفو تلمان قفك اسكله تلمان تني أي ku qumtay waxa uu cadaanay buu kolba wixii loo sheegay la cabiray masaa'ishii loo sheegay la cabiray ayaa qofka sifadan iska leh u cadaanaysa wuli sidii ay ahayd ayaana ay u cadaanaysa kama huwa in lagu qeyda fiicano sidii ahayd marka waxa yiraahdaan waxa weyn shaygii in la garto cilmi khulaasadiis waxa weyn inaad shay kasta garato sidoo ahaana aad u garato shaygii inaad garato sidoo ahaana aad u garato meesha waxa ka baxaya jahligii labadiisii qaybood murakabki iyo basiidki waxa kale oo meesha ka baxaya dhanigi shakigi wahmigi maratibul idrak intii kala meesha ka baxaysa marka cilmi waxa la yiraahdaa shaygii inaad garato sidoo ahaana aad u garato kaasa waxa la oranayaa cilmi ayaa la oranayaa laqabada markaas ka ilaaliyo waa ma tafsiirul ilmiga cadayntiisu fa huwa ilmu sifatun sifawiyya sifadaas oo yatajalla wa cadaanayo biha sifadaas sababteeda waxa ku cadaanaya liman ruuxna waxa uu cadaanaya qaamad ay qumtay hiya sifadu bihi qofka ay ku qumtay maxaa uu cadaanaya al madkuuru ma yumkinu ma yasihu an yudkara waxa uu cadaanaya wixii ay asaxaysay kolba in la sheego
ويمكن أن يعبر عنه ويسورة جلسين لقى عبارة كما هو السيد وهذا وعضانية شيء للشيء كريو أي صورة قلتها إن لعبره كاسي وحويا علمي والفقه فقهي معرفة دقائق العلم علمك وحياله سي قرصونا أو لا قرتويا مع نوع علاج يضع أي لتشرته نوع ممارسة اكتساب وحدوني إنه كان لسما في ماهية العلم والفقه سما تعريف علم هو يرأتكي لكن مقصود كوين تايم شاغنو قوليها كلا waxay oran jireen معرفة المعلوم على ما هو عليه waxa weeyaan shaygii la baranayay inaad garato sidoo uu ahaana waa inaad u garato ayaa la yiraahdaa fiqigiina uu qeexay laakiin taariifkii fiqiga ee la yaqaanay ku qeexay laba taariif ku qeexayo midna waa mid khaasa oo aad u kooban oo urursan midna waa mid caama oo guda balan taariifka laakiin day naqaanay fuqahada iyo ay sheegi jireen waad garanaysaa noocii waha معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها تفصيلية سمين كيوس كقبل وحوري فقه وحو كلية وحالا إلى هذا فقه علمك كيسات كأقرصون حاشا دير فيرada dheer iyo garaadka ballaaran lagu garan karo kaasa waxa la fiqh ka aad ka u qarso iyadoo nooc cilaaj jiro la socdo cilaajku waxa weeyaan wixii in la kasbado oo wixii lagu dadaalo oo la mumaaraseeyo oo aad loo baaro taasu ka wada cilaaj dawadiha moodin amba cilaajki tufka kaama aad buu soo koobay marka fiqiga laakiin fiqigu ka caamsay macnihi caama oo guda balaadna uu keenaya wal fiqhu ma'rifatu daqaa'iq ilmi ilmiga kuwiisa yaryar ee aad ka u qarsoon in la garto weyn cid waliba ma garan kartee dad gaar u ba garan kara maca nooc cilaaji iyadoo la raacinayo nooc cilaaj iktisaab iyo mumaarasa qala abu hanifa wuxuu yiri rahimahullahu ta'ala alayhi معنى آدو عام وأبو حنيفة نكوكا حفقه الفقه معرفة النفس نفط إلا قرتوية ما لها وحي إيضو أي لهايد أصغنا دي وما عليها إيا وحي إيضا لغولها أصغنا أبو حنيفة يقول لي الفقه وحا لي هذا معرفة النفس نفط قرشدي دي معرفة النفس مصدر له إذا في فاعل كيس ما نوى مفعول كي مصدر معرفة النفس نفط إلا قرتو ما لها وحي إيضا أصغنا دي وما عليها إيا وحي إيا لغولها ما لها من الخير ما حصل لها من الخير نفط وحي وحصلي وناجا هنا قرط وما عليها وما حصل لها من الشر وحي وحصلي حماننا هنا قرطه كاسا وحل هذا فقه كانوا كعام سيها يسمها معرفة أحوال المكلفين إلا قرطه تذكر مكلفين تحواشون إلا قرطه كانوا كسي عام سيها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليها الفقه فقه معرفة النفس نفط قرشدي دويا ما لها أي قرأت وحي وسقنادي وما عليها وحي إذا كركيدا هذا يلا قولها ما لها من الخير وحي إذا وسقنادي وناجا وما عليها من الشر يعني وحي دافع هاي إذا وصل نقني إيه وحي دبها إذا كدعي إذا ما ركتي لقى قويني وقال وحوري ما العلم علمه إلا العمل به وحويان إن لو عمل ما العلم علم ما إلا العمل به إن لو عمل فلوية مويان والعمل إن لو عمل فلوية علمها ترك العاجل كان دقدقة إن لقتها قويا للعاجل كالضنبية درادي إن لقته وحكى له قدر أنت أبو حنيفة علمي waxa weeyaan buu waa amal falko cilmigaaga inaad ku amal fashaana waa tarkul aajil adduunyada iyo ku mashquulkeeda inaad ka fogaato lil aajil li tahsiil al aakhirah si aakhiradaadii aad u xasiliso janno iyo darajo wanaagsan aad u gaadho
waayo labadii iskuma goosan kartid ضدان لا يجتمعان اسمه جيان الدنيا وان كدر جيان آخرنا إيدنا داف بدن بان وجب هنا وإنا وحسين بكتان دورية وعدكت إن لا يسكوه إلهي وقاعد درو كراقف بين السقط درو وضد بقى الدنيا إلهي وكدر جي هذانا الدنيا ده يكدر جي أنا آخره كداهي وأنا آخره كتيدي يعني أنت عبادي سنة يو قرآن كآخره يو وكاس علمي وهذا لو عمل فلان علمي ما مركع علمي وعمل فلكم ما العلم علمي وما هي إلا العمل به لو عمل فلمويا ولا عمل به كعمل فلك علمي لو عمل فلي أنا تركول عاجلي كان دقيقة والدنيا إن لقت تجويا للعاجلي كان دب نعيا وآخرة الدرادي لو قطوا الدنيا هي آخرة هتكون نقطة دي الدنيا ده سكت وآخرة حاجة لو دقات فينبغي وحى بومبول مركز شيخه للإنسان إنسان كي وحى وهبون ألا يغفل عن نفسه نفتي سينان موجنان وما ينفعها وحى أنفع ينا إنان موجنان وما يضرها وحى دبا ينا إنان موجنان في ولاهات هذا هو الدنيا دي وأخرى هاي هذا الضمب وآخرة وفي وحى وهبون نفتي سينو كور هاي نفتي إنه متشرها وقبض حكمها وهاي وناجي وكقصبه وكدرقيه حمانتنا ويداريه فينبغي وحبون للإنسان إنسانك ألا يغفل إن أنه هالمامن عن نفتيسة وما ينفعها إيه النفط وحا أنفعيه وما يضرها إيه وحا دبيه في ولاهات يظهره وحا أنفعيه من العبادات والضاعات وعبادات هي ضاعات وما يضرها وحا دبيه من الفواحش والمنكرات حمانه وياني في ولاهات يظهر الدنيا وأخرها إيو تيدا دم فيستجلب ولا نصبنا يايو معضوف على ألا يغفل بالبعض فيه وفيستجلب إلا يسكرف يعني دمال ومركز سوتشيتو ما ينفعها نفط وحا أنفعيه ويجتنبه وكفواده ما يضرها وحا دبيه كي لا يكون عقله سيانو نقن عقله سوى علمه يعلمه حجة عليه حجة سيانو نقن وفيزداد عنه كررسن عقوبة نعوذ بالله إلهي كما قلنا من سخطه عرديس وعقابه عقابكيس وقد ورد وحا صار ربو وحو المركة قفكو نفتي سيها دو كورهايو وحي النفط وحو تري ضاعاء أغادو وحي النفط لبي معصية كديرادو الدوني آخر من نفتي سه وحي أنفعي وكد دال وحي لبينا وكفو غادو markaa muxuu soo jiidanaya nafta wanaageedii oo dhan buu soo jiidanaya haddii laakiin naftiisii uu halmaamo oo if iyo aakhiraba naftiisii wixii wanaag u soo jiidayay uu garan waayo oo uu weydaarto wixii xumaan u soo jiidayena uu ku habsado dee markaa qofkaasi cilmigiisii iyo caqligiisii xujo ku noqonaya caqli buu ilaahay siiyey garaad wanaagsan kamuu shaqaysiiyey علم وإلهي سي أو وافتشي كمو رقمنا كمو عمل فلن فيزداد عقوبة ده علم قاس مركب بكو كرنيني عقاب بكو كرنيني مركب شيخ ودعي فيستجلب ومركب صوتشي تبو لما ينفعها نفط وحا أنفعيه نفط أنفعيه ومن الثواب والحسنات وناجيه ويجتنبه وكذا هذا ما يضرها وحا نبيه من الآثام والسيئات حمانة كي لا يكون سيانو أوهان عقله عقل جيسو سيانو أوهان وأنو أنقن وعلمه يعلم جيسو حجة عليه حجة سياري أنقن شاهدا والدليل يشهد على ما يضر حجة كن قنية عقل جيسي علم جيسي فيزداد مركانو كررسن عقوبة فيزداد عنه كررسن عقوبة منصوب على أنه جواب للنفي وعقوبة تمييز يقول شارح حالك تمييز أرني لكن تمييز كاس واحد لغوه فقيمة فيزداد عقوبة ما مفعول به فيزداد أنا أكررسن عقوبة أنا أكررسن مركا دي لقد دي تمييز معنيه هو أتكانيا فيزداد مركا أنا أكرر بين قنصة قفكي عقوبة من جهة عقوبة واحد جرمه
وحول وقد ورد نعوذ بالله إلهي وحيد كما ينقلنا من سخده أم بسخده واسكمدون عردي سوى عقابي سوى وقد ورد وحصار في مناقب العلم علمك شرفتي سوى حصار جمع منقبة وفضائله هي وناجيدس آيات وأخبار هي أحاديث أخبار بمعنى أحاديث صحيحة أو صحيحة مشهورة أو عانة لم نشتغل كما ينان مشغولين بذكرها شيء جديد كي لا يطول الكتاب سيارة كتاب كلنا صمونا فصل في ماهية العلم والفقه وفضله صمونا فضله مركا ولا قدر يسيب علم قيمه سعيد ولبا ويتقارن اسكده إنسان حتى حيوانك أيا كي أقون طلع iyo waxa la kala fadilay kii aan aqoonta lahayn aygii lagu ugaarsanay kii la tababaray wixii uu soo qabtay waa xalaal baa soo kii aan la tababarina wuxuu soo qabtay waa xaraam baa hal lagu kala fadilay waa ay xayawaanada kuwa ugu liitu kamid waxa lagu kala fadilay hadana aqoonta waa sida marka aqoontu aad bay u qiimo badan faslun fi niyyati في حال التعلم كان يقول فصل في النية نية إلا هجاتيو في حال التعلم حالة وحبرشة فصل في النية حالة التعلم هدوك إنه عاد وحو فصل هاي النية إلا هجاتيو حالة وحبرشة في النية التي حصلت في حال التعلم وحو الشيخ مركز ثم لابد وحلقة ومارمان له قفكي وحا لغا مارمان وا من النية إنه لي مادو في زمان تعلم العلم وقت قفك علمك وبرنايو إذ النية محايرة نية هي الأصل يدا أصل في جميع الأحوال حالة ظهر شيخ هاي نور شيء دورم حنيني وحول بلا من يني مرق قفك علمك دياني وحيالك قارا لنيني نية دي مت صحيحة مت فاسدة ويالنس ساقا نو تفتري ونو فافاهين ثم لا بد وحلقة مارمانا من النية نية أيها لقى مارمانا في زمان تعلم العلم علمي برشدي سوقت جد إذ النية علة النية هي الأصل هي الأصل في جميع الأحوال حالتها أو بل فر الكسد النية ده وصل ركن جو وحرية أركان عبادة ومحد والنية وين لقوله عليه الصلاة والسلام وهذا الرسول كوري الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات عمل الذي وحي كو أصح يساو وحي كده أنت إنما صحة الأعمال عمل الذي أصح دود كائنة بالنيات وحي أهاتيون نيدي عمل كوح عمل صحيح كنا قنية نيدي ونايس أي عمل صحيح كنا قنية حديث صحيح حديث صحيح وحي من حديث عمر ابن الخطاب الذي رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم بوري البخاري هو حديث وقبل وضع كتاب كيس الجامع الصحيح وقبل وضع ما يلبى ضمن كسوع عليه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي وحل جسوري يقول هل كاو في رصدا كم من عمل بدنا عمل كاسو يتصور لصورة سنة بصورة أعمال الدنيا ده عمل لديده صورة ده لو صورة سنة ويسيرها دنا نقنية بحسن النية ده ونكسن سويته ده كل نقنية من أعمال الآخرة آخرة عمل لديده متكم ده ينقني وكم من عمل بدنا عمل كاسو يتصور لصورة سنة بصورة أعمال الآخرة آخرة عمل لديده صورة ده لو صورة سنة ثم يسيرها دنا نقنية من أعمال الدنيا ده عمل لديده متكم ده نقنية بسوء النية نية حن سببتين بلغت اللقبة ونوصل نقول دوناي حديث كان لا أصل له وح أصل ملها كتبت أحاديث كمية له وهذا الأمر سكع عادي يوم إن رسول الله نسبينا ما بنام عليه الصلاة والسلام أنت هسقرنا حديثهان إنه مصغنا حديثهان ومتشروا تاويل فهن لكن معناهن هذا الكلام وهذا معنيه صحيح معنيه waxa weeyaan amalkii caadiga ahaa iska mubaaxa
عمل كأدوياها هدين يوانا كسني أي لحرير سطو محو نقونا عمل آخر يسوب دليا عباده أي يسوب دليا تا عكس كده عمل كيوانا كسنه قفك آخر عن فعلها هدي استصنم أي صوغ شو استصنم داسي waxay biinaysa oo ay burinaysa amalkii wanaagsana way hoobinaysa marka laakiin xadiisnimo uma asixi macnaha waa saxiix laqbadiisa marka hadaynu ku noqono wa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam sharxiisana dibaan u yar jaleeci doona wa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri kam min amalin amal badana amal badan kam tuwa khabariyo وحويا الكثير من الأعمال كم من عمل بدنا عمل كاسو يتصور للصورة سنة يسوي شارح وحورنا فعل هو مبني للفاعل يتصور سلا صوت الدنيا يتصور مركز الدين ساكر إننا كم من عمل بدنا عمل كاسو يتصور صورة بصورة أعمال الدنيا الدنيا ده عماشي ده الصورة ده كصورة بيه يعني عمل الدنيوية ويصير هذا النقطة بحسن النية ده ونكسن سوته ده من أعمال الآخرة عمل الآخرة أيو كم النقطة تصال يلا هدي نسوق هذا إلى قاعدة هو إنك شغل عمل كان يسوقها عمل مركز رئيس مباحة وقفك يستجاب بنانا وأن عبادة أهين أيان نيو وناكسن هدي أي راعدو عمل آخرون نقول عبادة يسوب دلي ما كم بدا إن أدو حسك عنده أو أدو حسك عبته تي وحويا وإسكم مباح صمه وعمل الدنيا نرش هذا الله كحرة إن أدو عنده وأدو عبته لكن هدي مركز واحد عنيسو أم بعد وحبيسو نيو وناكسن أدخل الله وأد نيسو عبادة أدو حوجي ستة صلاة بدن أدكو تكتي قرآن بدن أدكو آخرين صوم أدبريكو سونت سحور تكسي درك أو بيا بدن سيعب حدي نيدا وناكسني أي لا حير سطو عنتظر دي يعبتان كاجي وحنا نقنيا عباده أيو نقنيا مركور من أعمال الدنيا أي عنتظر يعبد سكات عمل الدنيا لكن نيدا وناكسني راعي درتين ما هي سبب الشهرينتي عمل آخره أي سبب دش وحلا مدا هردد يوكل إن الإسكا سيحنا توا وح مباح وعمل الدنيا وشقاء الدنيا إنه نصن وإنه سيحنا لكن هالدين يدا أجلسوا هردو بدن سيحه سياد هردو وعبادي ستو وصلاة الليل أدو تكتو وقرآن أدو آخره سي عبادتي هردو أدو عافمات قوا فريشة أدو صوك عدي aad ugu soo kacday seexo haday ka tahay hurdadaadii ajir baad ka helaysaa amalkii adduunyo muxuu isu bedelayaa amal aakhiro cibaado ajir baa laga qoray hurdadaada hurda ajir laga qoray waxa la mid ah qofku hadii masjidka uu iska soo galo inuu iska soo galo oo maaragtay uu iska fadhiyo waa arrin iska banaan عبادة ما أصلها لكن مركو مساجد سوق قال أو فريستو هدوني اعتكاف إنه اعتكاف سيء أو ما عرفت صلاة وصلاة كسوي واعتكاف سيء أنت هدوني فرد يجي عادي هم يسرقي عبادة أي يسرقي هدي لكن هو سوق قالهم وحوجا عاد كوير نسات أو ما عرفت عاد عشرة كوير سوت هدي أرنتو أي كتر عشرة وكسوي واحد عشرة كمل cuntadii aad cunaysi iyo sharaabkii aad cabaysi hadii aad uga jeedo adigu aad ku noolaatay wax ajir kama helaysi hurdadii aad seexanaysi dad uga jeedid nasasho wax ajir kama helaysi marka hadda niyadu shayga waxay ka dhigtaa cibaado ay u rugtaa maydhashadii imika aad maydhanaysi hadii aanad waxba niyeenin oo ay ka tahay qabowsi wax ajir kama helaysi laakiin maydhashada aad maydhanayso haddii niyo wanaagsan aad raaciso cibaado noqoto markay ugu yartay sunna noqonayso marmarka qaarna inay ka sara marto ayaaba dhacaysa marka macnaahan arrintani waa sax
arrin marka hore ahaa camal adduunyo haddii niyo wanaagsan la raaciyo camal aakhiro isu rogaya oo cibaado noqonay kow taa cagsigeeda waa kam min camalin camal badana camalkaasoo yutasawwaru la suuraysanayo bisuurati acmaal aakhira sheekhu isagu wuxuu ka dhigayaa musamee yatasawwaru suuroobaya camalkaasi bisuurati acmaal aakhirati aakhira camaladeeda suuradeeda ku suuroobaya uma yasiiru haddana noqonaya min acmaali dunya camalada adduunyada ka mid noqonaya bisuu'i niyati niyada xun sababteeda camal markii hore cibaado ahaa ayaaba haddii istusnima ay gasho camal aakhiro ahay camal adduunyo noqonaya wax ajira ka helaysa haddaan dembi lagaaga raacay ayaad burasi daawa oo adiga aan lagu qoolinba tusaale ahaan inaad salaad tukato dee waa cibaado waa camal aakhiro soo haddaad salaada u tukanaysa ka waran qofku arkaya oo salaadii aad ku yar dheeraanayso nin khushuucsan aad iska dhigayso oo sujuudi aad yar dheeraynayso oo aad isleedahay hal lagu arko oo hal lagu moodo nin khushuucsan dee wax ajira ka helaysa salaada quraan baad akhriyaysa quraankii ilaahay daraadii uma akhriyaysidii hal la yiraahdo ninkan waa cibaado badan oo quraan ruuga ayaad u akhriyaysa dee wax ajira ka helaysa waa camal aakhiro laakiin niyada xun iyo istusnimadaas ayaa baabi'isay burisay هذا القانون كله سلف كوا لقى سو بوري رب عمل قليل تكثره النية ورب عمل كثير تقلله النية وحا آد وبدن عمل ير والنية أي بدنس عمل كتراهن ويرا لكن نية بتياهن كرقات تعج سجدا عمل بدن oo niyo xumo ay baabiisay isna dhici kara waxa laga yaabaa nin kun shilin bixiyay iyo nin $1 bixiyay ka kunka shilin bixiyay inuu ka ajar bato bixusni niyada wanaagsan sababteed camalkiisu uu yari laakiin niyadiisa fiicna kana camalkiisu uu baday laakiin niyadiisa xumay marka waa arrin jirta wuxuu weeyaan baqi marka waxa haboon أن ينوي هذا علمي وعبادة صمة علمي عبادات كوه هو كتيرين مركع علمي قال ضل بين يدي إلا وناتيوه وحلو ينبغي وحابون أن ينوي ينوي المتعلم غفك وحبرنا يا في طلب العلم وطن محد يجلس مركع وحبرنا وينبغي وحابون أن ينوي ينوي المتعلم غفك وحبرنا يا في طلب العلم علمي مركع ضل بيو رضا الله تعالى إلهي رالي هشيس والدار الآخرة دار آخرة وإزالة الجهل جهلية إنه كتر تره عن نفسي نفتيس وكتر تره وعن سائر الجهال ذاتك الجهاش أوردن جهلي وآفي أوردن إنه جهلي كتر تره وإنه نيه وإحياء الدين دين تنورين تره وإنه نيه وإبقاء الإسلامي إسلامك باقي يلدي سوى إنه نيه فإن بقاء الإسلام وهي إسلامك باقي نقشديسو بالعلم حاصل وحي كحاصل يسا بالعلم علمي كحاصل يسا ولا يصح ما صحي الزهد زهدي هي والتقوى على كبقي مع الجهل جهل معي علمي مركين طلبين علم هو عباده نية وإنين وناجنه تاسوا من لازمة والله مرمانة سلف كينينا أرنت آد بي ودى ذلك جرى مركا علمك طلب بيان نيادو آد بي ولا تجرى وحا لقى سوري سفيان الثوري إنو ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ما الدويني وح إيقاقا عدك نيدي وح للدوية وحا وضرا نيدا أبو الحسن علي بن عمر أمير المؤمنين والله يقانو الإمام الدارقطني أي وحوري طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله علمي وحان وضلبنا مركي هوري لغير الله إلهي وحان هين أيان وضلبنا إلهي عدان هين أيان علمي مركي هوري وحكا دون نيو لكن علمي جيبا مركي دونه قامية وحن نقو قصبي إنام إلهي درادي دينتي وفافن وحو كوضا الشيخ هذا الكا قفك علمي ضلبيا وحا لغا يابا مركي هوري علمي بلو وكويهي in dheef adduunyo ay ka dhex buuxayso oo maxay inuu isagu dadka u hormaro
laakiin markuu cilmigii sii dhex galo ee uu tiimbado akhriyo aayaadkii quraanka axaadiistii rasuulka sallallahu alayhi wasallam taariikhdii culimada uu aad ugu fiirsado ilaahayna uu la damca qofka hadda khayr meesha waxa ku jirta waafajintay ka tahay inuu ilaahay qofka khayr la damco daanu khayr ba ilaahay kula doon weliga diinta ma fahmisid waa laga dhadhaaray diinta fahankeeda ilaahayna uu khayr la doono marka cilmigii baa qofkii ku hagayo oo ku hanuuninaya sidii toosnay cilmigiisaasina wuxuu u kordhinayaa inuu ilaahay u noqdo wadadii toosnayd iyo sidii wanaagsanayd oo u laabto laakiin haddii qofkan naftiisu ay ka taagroonaato naftiisu sida jeceshahay uu raaco qofkaasi wuu lumay marka qofku markuu cilmiga dalbayo kulli waa laga yaabaa inay iskaga jirto magacaad ku heshi manfacaad ku heshi maal aad ku heshi mansib iyo madaxtinimo aad ku gaadhi laakiin inuu qofku la dagaalamo arrintaas waa waajib al-imaam abu isxaaq ash-shaatibi ayaa isaguna maruu niyada ka hadlay wuxuu yiri hadal cajiiba aakhirul ashyaa'i nuzulan min qulubi as-saalihiin hubbu as-suldati wa tasadduq shayga ugu dambeeya ee qulubta dadka saalixiinta ee wanaagsan qalbigooda ka baxa waxa weeyaan buuli hubbu as-suldati wa tasadduq madaxtinimada iyo horumarka dadka oo la jeclaado macnaha qof kasta qalbigiisa waxa ka dhex buuxaya weligiiba cilmi hal ahaado weligiiba sheekh ha ahaado hubbu sulda madaxtinimo jacayl wa tasadduq dadka inuu isagu hormaro ayaa qalbigiisa ka guuxaysa laakiin qofku markuu naftiisa ka adkaado ee naftiisu ay dhammaystiranto shayga ugu dambeeyo ka adkaada waka shayga ugu dambeeyo waa hadal cajiiba ee qofku ka adkaada waka waa inuu ka tago madaxtinimo jacaylka iyo waxa la halmaala waqtigan dee saamaxay salafkeeni sida isaga ilaalin jireen waxa loo yaqaan caanbax aad bay u badnay ayuba sakhtiyani sheekhi loo oran jiray ardaygiisi shucba wuxuu soo wariyay inuu yiri dukirtu wala uhibbu an udkara waa la sheegaa buul laakiin ma jeceli in la sheego marmar baa raaci jiray buuli ayub oo uu isii kaxaysan jiray dabadeetana wuxuu mari jiray buuli meelaha huluulaha iyo luqluqyadu mari jiray si aan loo fahmin xamaad ayaa isaguna wuxuu yiri mar baan la socday ayub markaa wuxuu marayay wadooyinka qarsoon ayuu marayay inni la ajabu kayfa yahtadi laha firaran min an-nas an yuqala hada ayub wuxuu ka carray in la yiraahdo kaasi waa ayub inagana xaaladeenu maanta halkay marayso waa la ogyahay al-imaam ahmed oo kale wuxuu yiri uriidu an akuna fi shi'bin bi makkah hatta la u'rafa wa qad bulitu bi shuhra waxaan iska jeclaan lahaa gol kamida golayaasha maka inaan iska galo si aan la baranin waxa la igu ibtileeyay waxa la yiraahdo caanbax marka culimadeenu saas isaga ilaalin jireen caanbaxa aad iyo aad bay isaga ilaalin jireen oo ay uga digtoonaan jireen wuxuu weeyaan waxa haboon an yawiya inuu niyeeyo al-muta'allim bi talab al-ilm ilmiga markuu doonayo rida Allah ta'ala ilaahi raali ahaanshiisa waa inuu niyeeyo wadaar al-aakhirata iyo daarta dambe wa izaalata al-jahli an nafsihi wa an sa'ir al-juhal niyada saxdi waa taas al-imaam ahmed ayaa waxa uu yiri ilmiga wax u dhigmaa ma jiro liman sahat niyatu laakiin waa qofka niyadiisu hadii hagaagsanta markaas waxa lagu niyada hagaagsan maxaa uga jeeda qaala yawi raf'a al-jahli an nafsi wa an ghayri niyada saxdi waxa weeyaan cilmiga qofku markuu dalbayo waa inuu niyeeyo jahliga inuu naftiisa ka koriyo kadib jahliga markuu naftiisa ka koriyo inuu walaalihiisa kale ee jahliga uu aafeeyena uga gurmado oo iyagana jahliga uu ka koriyo oo iyagana diinta u baro niyadaadu haday inta tahay cilmiga uu tis qaadaya waanu tarmaya meel la wad gaaraysa laakiin haddii niyadaadu ay tahay maal aad heshidii magac iyo mansib iyo madaxtinimo iyo maamul waxaagu meel ma gaaraya waa baaba xataa haddii aad wixii hesho aakhiro wax kuma yeelan wuxuu wa izaalata al-jahli wuxuu niyeynayaa
jahliga inuu ka tirtiro can naftiisa وعن سائر الجهال يدك كلام علم قالهين وإحياء الدين بنيين دين تينو نولي ويبقى على الإسلام إسلام كينو باقي يلو فإن بقاء الإسلام إسلام كباقي الكيسو بالعلم علم وحسرين كتب تقارو حكو قرن فإن يبقى على الإسلام إسلام كوحا لقو باقي يلي بالعلم علم قال لقو باقي يلي إسلام كا علم قال أيا لقو باقي يلي قفقي علم له أيوبا إسلام كسحدا دلك قارسين كا qofkii cilmi leh ayuun bay dadku isku halayn karaan inta maaragtay dhibaatadu aanay jirin dadku waa iska wada culimo laakiin waxa la kala baxaa marka fitno iyo imtixaan u yimaado ayaa la kala baxaa ninkii maaragtay danaha gaarka wata ee daad xoorta iyo kii waxaan dhabta ay ka hay markaas la kala baxaa fitnadu ay dhac fitnadani waa dadka lagu kala hufaya lagu kala haadinayo dadka lagu kala shiilay markii فتنة خلق القرآن أي دعضي ترجع صباح ويدي كوبا الإمام أحمد أوكله إنه صباح وحيري ولا يصح مع الصحة الزهد جية والتقوى على كبقي مع الجهل جهل معي مع الصحة وأنشدني وحيتري يقولي الشيخ الإمام شيخي إمام كالا جلونا برهان الدين صاحب الهداية شعرا لبعضهم قوي بركود إليه لابد بيت بين قوين دون هرتا شيخ خانو كو أماني وبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني وشيخي شيخ هوها صاحب التعليم المتعلم صاحب التعليم المتعلم علمي سمرك الكهد لأني وحين قدرني الشيخ لا يراد صاحب الهداية سمع صاحب الهداية وكان برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني من الفرقان لا يراد وبلاد ما وراء النهر كم ذا أي شيخ هسكسو شيء وحول انتي شام بقول يو صدق يسر عشان كمر كمريسي تاريخ الهجري شيخ اللفتي تاريخ بدل لك ما هي وعلماء داسي واحد علماء واوين ودينته meel sare ka gaadhay haddana deegaankooda aad u durugsanaa aad u fogaa warbixin badan laga heli qaar badan oo culimada ka mid ah ma waraa nahri taariikhda ay dhasheen iyo taariikhda ay dhinteen iyadoo kutubtooda ay wada caayihiin ayaa haddana la garanay sida daraaddeed sheekhan kitaabka uu qoray iyo isaga waxa caansan kitaabku qoray kitaabkii baa lagu taariifinay lagu leeyahay saaxibul hidaayah isagiina taariikh badan laga hayo oo culimada aynu lahayn way isqarinayeen oo maaragtay ismay muujineen imkana de wax walba waxa la soo dhigay Facebook iyo Twitter iyo YouTube ayaa la soo dhigay marka qofkii isaga isu bogay oo isbaafinaya oo isbarakaynaya ayuu halka maartay soo qotominay kamaradu soo qaadan inta koofeerka tago marka kaafiye kala dheeri culimadeeni hore say ahaayeen iyo sideen inagu nahay waa labo cirka iyo dhulka isu ah sheekhan saaxib hidaayah wuxuu qoray kitaab fiqiya xanafi wahay oo la yiraahdo bidaayatul mubtadi asu sharaxay wuxuu ku sharaxay hidaayatul mubtadi marka hidaayaha loo nisbaynayo waa sharixi bidaayaha waxa takhriijiyay hidaayaha sheekh la yiraahdo al-imaam az-Zayli kitaabka nasb raaya Zayli waa Zayli cadin sheekhaas culimada hore uu kamid ahaa isaga laftiisa Zayli cadina loo nisbeeyay culimada qaarna waxay aaminsan yihiin inuu ahaa Soomaali sida sheekh Abdi Fattah Abu Qudo kale wuxuu leeyahay Soomaali ninka Soomaaliga ah ayuu oranay ka sheekhaas takhriiji gabayganu marka ay soo qaatay buu sheekhaas wa anshadani inshaadkana waxa loo isticmaalaa qiraa'atu shicri gabayga in la akhriyo inta badanna waxa loo adeegsadaa gabay cid kale ay tirisay in lagu dul akhriyo li bacdihim sawara saaxib hidaayah ma laha gabayga cid kale iska leh kow haddii isagu uu lahaan lahaa wuxuu ku qaydi lahaa linafsi isagu leey wa anshadani wuxuu ii tiriyay buu dhaar shaykhul imaamul ajal burhanuddin saaxib hidaayah shicran gabay li bacdihim barkood u sugnaan oo muxuu ahaa fasaadun kabiirun caalimun mutahtikun wa akbaru minhu jaahilun mutanassikun huma fitnatun fil caalamiin cadiimatun liman bihima fi diinihi yatamassak fasaadun fasaad weeyaan fasaadkaasoo kabiirun weyn caalimun caalim fasaadun fasaad fasaadkaasoo kabiirun weyn caalimun caalim
عالم كاسو متهاتكنا وحو أبين وفساد ويبو وأكبر منه وحا كسي وين حق فسادك جاهل من عن علم لهين ومتنسك العبادة سنية وما الله بضعس فتنة وبلايا بلايا داسو في العالمين كسغناتي الدنيا ده بلايا داسو عظيمة وين لمن قف أي بلايا ويه يتمسك قبصنيا بهما لبدو قبصنيا في دينه دين تيسا وقبصنيا wuxuu yiri sheekhu aba gabaygan waa gabay xikmad leh halka uu ku saleeyahay waynu saari doonaa fasaad weeye fasaadkaas oo kabiir weyn caalimun nin caalimo oo mutahatikun aan waxba u aabayin waa nin cilmi leh alladii laa yubali an yantahika wa yumazziqa sirruhu wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay aqoonaha kuma amal falay waxba u aabayin waa nin cilmi loo hadana xaab qaada وحلال يحرانا كلا ساري وحضونا سميني حتى اسمه أرانا يوم بالله تفدي حدوده ولو سود تشيه كما بقنيه نيك الشيخ هاي وينابه وحاسبي كما بقنيه وكم بدها هذا جيه حمانتيس ودبعته ويبول دبعتنا وحكويه هاي دتك سو دبعته وياه هنا وحويه قف جاهلون علم لهين با أركيه مركزو خدق ماي أو علومينه شيخ قبل بو سميان أدوغنا السماء حمانتي ومركز السماء وأكبر منه وحا كسي وين بول نينكا عالم كان وحبو أبيين جاهل من جاهلو يسوغنا متنسك عبادي سنية نين يسوغنا جاهلو متنسك عبادي سنية دين توحبا كما يقان حتى عقيدة ديسة عدبو كقد ينيا عبادة ديسة عدبو كقد ينيا هاول كستو قمانيو عدبو كقد ينيا هذا الكستو أرانيو عدبو كقد ينيا وحي وناكسنا iyo wixii xumaama kala garanay sheekha shaariix oo ornay ka suufiyada fi zamanina wasan nimanka suufiyada la yiraahdo waqtigeena joogo suufiyo waxa weeyaan niman intay dadka ka dhex baxeen cilmi ma ilaahay waxa dhamaan cibaadeysanaynayo buurahaasay galeen marka ninka caalimka kaasa ka sii daran wuxuu uga daran yahay ninkan caalimka ahi waxa laga yaabaa amalkiisu ha xumaadee laakiin aqeedadiisu inay sax tahay عقيدتي واصح وصليب عمل كيس مباح dadka uu fasahaadinay kan jaahilka cibaadeysanaya ka darano isagu waxa laga yaabaa amalkiisa iska dhaafi aqeedadiisu inaanay saxay wax gaalnimo inuu aaminsan nifaaq inuu aaminsan oo haddana cibaado u haysto marka isaga ka sii dar akbaru fasadan min al-aalim liana ninka caalimka aqeedadiisa sax noqon karta laakiin kan aqeedadiisu xataa inay kharibata dhici karta waqtigii baad moodayeen gaadhay habeenka dambe inuu hadalkan asalkiisa aynu sheegi doonaa inuu dib ugu celin doonaa insha Allah wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam